maalgashi saxa sidee loo sameeyaa 2026 maxay say tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ama ugu mudan ee la maalgashado oo uu qofku faa'iido fiican ka heli karo haddii uu si sax ah u maalgashado maalgashi saxa ma aha nasiib waa go'aan ku dhisan aqoon qorshe iyo dulqaad qof kasta oo raba mustaqbal dhaqaale oo wanaagsan waa inuu fahmaa sida saxda ah ee wax loo maalgashado ugu horreyn walaal ku soo dhawow YouTube-kan waxaan kaga hadalnaa online business-ka iyo self development horumarinta shakhsiyadda haddii aad jeceshahay mawduucyadaas fadlan nagu soo biir oo YouTube-ka subscribe noo saar sidoo kale like noo saar si muuqaalku dad badan ay uga faa'iideystaan waxaan soo qaadan doonaa dhowr tallaabo oo ay muhiim tahay in aad samayso iyo waxyaabaha ugu mudan ee ay tahay inaad maalgashato ama inta badan ugu muhiimsan waxyaabaha la maalgashado kow waxyaabaha la rabo qofku inuu sameeyo intuusan wax maalgasho waxa kamid ah sameey yool cad marka ugu horeysa intaadan maalgashi ama aad lacagtaada ama dhaqaalahaaga aadan wax ku maalgashan waa inaad samaysato horta yool cad iyo hadaf waa inaad digsataa ka hor inta aadan bilaabin isweydii su'aalahan maxaa rabtaa inaad gaarto waa maxay hadafka waxa aad doonaysa inaad maalgashato maxay rabtaa maxay ujeedadaadu maxay tahay ma dakhli degdeg ah doonaysa mise mid waqti dheer qaata haddii aadan yool samaysan ama yool la'aanin waxay tilmaamaysaa maalgashi aan jihaysnayn taasina waxay keenaysaa marka inaad ku fashilanto marka inta aadan wax maalgashan marka ugu horeyso qorshe cad samee qorshe cad oo aad maalgashigaaga ku hagayso iyo waxa aad maalgashanayso iyo waxa aad maalgashanayso waxa uu ka shaqeynayo horta qorshe nidaamsan samayso marka aad qorshe nidaamsan samaysato qodobka labaad waxa samaysaa baro ka hor inta aadan lacag gelin waxa aad rabto inaad maal gashato horta baro oo waxa weeye si fiican u fahan tusaale haddaad doonayso inaad dhul maal gashato dhulku sida uu shaqeeyo sida macnaha sida uu isku bedelo qiimayaashiisu sida macnaha qiimihiisu u siyaado xilliga dhulka ugu fiican xilliga la iibsado xilliga dhulka la iska iibiyo marka wixii waa inaad aqoon u leedahay tusaale waxaad rabtaa inaad beer samaysato beertu xilmaal beerta la beeraa xilmay beertu soo gashaa shaqaale intee leh u baahan tahay biyaha meesha aan ka samaynayo biyuhu intee waqti intee leh biyo lagu heli karaa haddii la rabaan riigin la qodo waxa weeye haddii ay ku roon yahay shaqaalaha meesha ka shaqeeya ama beeraha ka shaqeeya lacag intee leh qaataan marka waxa weeye booro ka hor inta aadan lacag gelin waxa aad rabto inaad maal gashato marka hore adigu daraasad ku samee maalgashi kasta wuxuu u baahan yahay faham sidee ayuu u shaqeeyay inaad fahanto maxaa faa'iido laga heli karaa maxaa khatar oo ku hareeraysan haddii aadan fahmin waxa aad rabto inaad maal gashato ha gelin sababtoo ah wixii aadan fahansaneen wuxuu kula geli karaa meel qaldan ayuu kula geli karaa marka waxa muhiim ah waxa aad rabto ama ganacsiga aad rabto inaad gasho dadka ganacsiga ku jira inaad wareysato oo aad xog ka raadiso oo aad weydiiso iyaga markay xog ku siiyaan adiguna suuqa aad samayso inaad xogta analysis ku samayso kadibna aad ka soo saartay markaa natiijo sax ah in ganacsiga la maal gashan karo ama in waxa la maal gashan karo iyo in la iska deyn karo marka labada qodob waa ka hor inta aad wax maal gashan inaad samayso inaad hadaf cad degsato oo inta aad wax maal gashan inaad hadaf samaysato iyo labo in aad waxa aad rabto inaad maal gasho daraasad ku samayso waxaan arkaynaa marka maxaa la maal gashadaa xulashooyinka saxda ah iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay tahay ama la maal gashado dabcan dhowr qodob baan soo qaadanay waxa ugu horeeya oo la maal gashado dabcan dhowr qodob baan soo qaadanay qodobada ugu dambeeya ayaa ugu xiiso badan uguna muhiimsan qodobka koowaad oo aan soo qaadanay ee mudnaanta leh waxa weeye naftaada in adigu aad naftaada maal gashato oo xirfada aad barato waa qodobka koowaad sababtoo ah waxa ugu khatar yar maalgashiga ugu khatarka yar waxa weeye inaad adigu naftaada waxa weeye maalgashi ku samayso xirfado iyo aqoon aad barato sababta ku khasaari maysid xirfadahaasi bari lacag bay ku keenayaan adiga ku shaqaysanaya waxa weeye mustaqbalkaaga noloshaada wax badan bay ka bedelayaan marka waxyaabaha ugu muhiimsan waxa kamid ah qodobka koowaad waa naftaada iyo xirfadahaaga inaad maalgashato tani waa maalgashiga ugu muhiimsan inaad xirfado online barato ganacsiga iyo suuqgeynta sida u shaqeyso inaad barato waxbarasho joogta ah inaad barato cryptocurrency iyo lacagaha inaad barato forex hadaad baran karto inaad barato xirfado inaad barato faa'iido joogta ayaad ka helaysaa haddii aad si fiican xirfadaha u barato sababtoo ah waxa ujeedka horta maalgashigu muxuu yahay waa inaad lacag wax geliso si aad ugu lacagtaasi ay lacag u samayso haddaad xirfado naftaada aad geliso oo xirfado barato xirfadihii lacag bay keenayaan waa hadafkii aad u socotay ogow qofku marka la yiraahdo naftaada maal gasho qof la yaab wuxuu leeyahay naftaada maal gasho maxay tahay naftaada maxaa laga maal gashanaya anu waxaan doonayaa waxaan lacag ka sameeyay hadda naftaada waa tii wax keenaysay
marka maanta xirfad barato xirfadda aad ku shaqayso hadda lacag bay keenaysaa lacagtaasi naftaadu ma keenin waa maalgashigii aad naftaada gelisay iyo aqoontii aad naftaada bartay ayaa kuu soo jeeday inaad markaa aad wax weeye dhaqaale aad ku hesho marka waa maalgashiga ugu saxan runtii maanta dad baa kumanaan kun oo doolar bishii sameeya iyagoo aan shaqo iyo culays badan ba aan qaban leh blogging website ya leh affiliate marketing ku shaqeeya freelancer ku shaqeeyo shirkada la shaqeeya xirfada ay barteen ku shaqeynaya muuqaal samayn ha noqoto graphic design ha noqoto turjumaanta luqada sida loo turjumo ama turjumaannimo dad baa ku shaqeeya marka qofkaasi naftiisu maal gashaday aqoontii xirfadii uu lahaa ayuu ku shaqeysanaya oo lacag soo saaraysa qodobka koowaad waa qodobka labaad ee la tahay in qofku uu maal gasho wax weeye ganacsi yar qofku haddii aad geli karto inaad ganacsi yar aad gasho ama dukaan yar furataya adeeg yar meel dhigataya waa muhiim ganacsi online ah inaad furato runtii aad bay iyaguna runtii muhiim u tahay waxa weeye mashruuc aad la yeelato qof kale haddii aad tusaale lacagtu ay kugu wada filnayn inaad qof kale aad mashruuc la yeelato oo mashruucaasi runtii aad ganacsi cid kale la yeelato haddii uu guulaysto si faa'iido fiicanna aad halkaa uga heshaan marka ganacsi yarna isna waa dooq furan iyo waxyaabaha la maal gashado ku bilow waxa yar ku bilow si tartiibna marka in ganacsiga loo bilaabo la rabo marka ugu horeysa oo lama rabo ganacsi meesha ugu sareysa in laga bilaabo waxa arkaysaa qof baa ganacsi furanaya decoration-ka meesha uu ganacsiga ka furtay qarashka uu galiyay iyo waxa meesha ganacsiga yaala waxa badan wixii uu galiyay oo decoration iyo quruxdu xoog saaray quruxdu macna ma sameynayso waxa macna sameynaya inaad wax laga iibsado aad keento sales fiican aad samayso suuqeyn aad samayso waxa macna sameynaya waa sida marka qodobka labaad waxaan ku sheegnay waa ganacsi yar qofku uu sameeyo qodobka saddexaad oo qofku maal gashan karo waxa kamid ah hantida maguurtada waxa la yiraahdo real estate waa hantida maguurtada ah sida qofku guriyo intuu dhisto gurihiisa kireeyo haduu guri dhisto maanta qofku maanta 5 qol leh oo 5 qol magaalooyinka waaweyn saaran ku leh 300 400 baa lagu kireeyo hadda bil walba 400 dollar baa soo dhacaysa isagoo jiifa bay 400 soo dhacaysa marka waa maalgashi waa hanti maguurta wax ka dhamaanaya ma wax maalmo barqaala soo saaraya guri la kireysto dhul saalahan dhul la iibsado kala mustaqbal leh waa maalgashi waqti dheer qaata horta oo amaan ah hadii si sax ah aad marka ganacsiga ama maalgashiga aad u samayso taasina marka waa hantida maguurtadana waa waxyaabaha dhaqaalaha la geliyo waxyaa qodobka afraad aan arki doono waxa kamid ah waxyaabaha la maal gashado stockiska iyo shareska in shirkadaha waaweyn stockyada inaad share ku yeelato oo saamiyaad ku yeelato sida shirkadaha waaweyn Apple oo kale shirkadaha waaweyn sida Microsoft oo kale shirkadaha waaweyn oo kale inaad maalgashiga aad samayso laakiin wuxuu kaaga baahan yahay dadka marka dulqaad kale aqoon waa kaaga baahan yahay sida loo maal gasho hadii goor stock iyo shares waxa ka faa'iideysan kara dadka inta badan qurbaha jooga ayaa aad uga faa'iideysan kara oo the facility iyo waxyaabaha shuruudaha runtii buuxin kara taasina waa muhiim oo waxyaabaha la maal gashado qodobka saddexaad oo aad maal gashan karto waxa weeye cryptocurrency lacagaha la yiraahdo cryptocurrency lacagaha digitalka ah runtii dhaqaale fiican qofka si fiican u maal gashada aqoonteedana barta runtii dhaqaale fiican buu ka sameyn karaa sida in la qofku maal gashada bitcoin ethereum iyo waxyaabaha la midka ah coinska la midka ah tusaale hadda bitcoin oo kale 2010.1 bay ahayd 2026 100,000 oo dollar bay joogtaa waa dareemi kartaa qofkii maanta maal gashaday oo samray oo dul qaatay oo meesha ku daayay maanta waa taajir nin nooba baana 10 dollar ninka gashaday oo 100 xabba helay maanta hadaad ugu dhufato 100,000 oo ay marayso wuxuu la jiifaa lacag 10 milyan ku dhow ayuu meel la jiifaa marka cryptocurrency waa dooqyada iyo xulashooyinka ugu muhiimsan ee la maal gashado laakiin khatar bay leedahay cilmi ayayna u baahan tahay inaad barato oo dabcan skills-ka hore ugu soo sheegnay inaad skills-ka aad baranayso aad ku darsato sidoo kale waxyaabaha bilaabi karto waxa kamid ah ganacsi online inaad bilowdo oo ganacsi online sidee noqonaya ganacsi anaga ka soo hadalnay ganacsi yar baynu soo sheegnay kii hore oo physical ah ayaynu soo sheegnay kan waa ganacsi online ah oo online ku shaqeynay tusaale inaad YouTube furato kale content creation dadka muuqaal samaynta aad ku soo biirto oo muuqaal aad ku soo gudbiso oo YouTube aad furato dabcan YouTube hadii monetization lagu furo ama lacag samaynta lacag baad ka samayn kartaa taasina iyaduna waa muhiim blogging oo kale inaad barato website macnaha wax lagu qoro bloggeryada website-yada inaad barato tusaale qof website baa samaysanaysa article aad ku soo qoraysa article-adii Google AdSense baa u dalbanaysa xayeysiin baa lagu soo bandhigaya adiga lacag ba halka kaaga sameysmaysa waxa laga yaabaa adoo shaatigaagu ku cad yahay waxa meel iska fariya article yar oo aad qortay in $100 $200 ku soo saaro bishiina $500 $600 $1,000 ba aad ka hesho marka iyadana waa muhiim de blogging inaad barato
oo aad ku darsato xirfadaha laga raba dhaqaale ku soo baxaya way wana dhaqaale joogto ah affiliate marketing shirkadaha inaad waxa weeye aad marka dad YouTube leedahay blogging leedahay affiliate marketing ma ku shaqeysan kartaa shirkadaha waxa weeye bixiya affiliate ka bixiya linkooda soo qaadan kartaa waxaad ku xayeysiin kartaa baraha bulshada sida YouTube iyo website-kaaga ay ku soo xayeysiin kartaa lacag baad ka samayn kartaa hadda shirkadaha Soomaaliyeed dhalinyarada hadda caan ka ah oo dhan baraha shirkadaha waaweyn ee Soomaaliyeed ay u xayeysiiyaan waxa laga yaabaa shirkada hadda Waafi oo kale hal qof xayeysiinay bishii $1 bay siin xayeysiin ku bixinayaan marka waad ka diiranaysaa marka waa ganacsi online oo aad muhiim u yahay e-commerce aad bilaabi kartaa ganacsi online sida dropshipping oo kale ayaad bilaabi kartaa taasina waa muhiim fursad weyn ayuu qurbaha ku leeyahay dadka qofka qurbaha jooga oo kale fursadda ganacsiga online ka runtii aad buu ugu bilaanay sababtoo ah payment option kii baad helaysaa lacagta lagu bixinayo intaas marka waxaan soo sheegnay 6 qodob oo waxyaabaha mudnaanta leh oo qofku ay tahay inuu maal gashado 6 qodob waxaynu ku soo sheegnay in qofku naftiisa uu maal gashado ganacsi yar inuu abuuro hanti mid guurtaa inuu maal gashado stocks iyo shares inuu maal gashado cryptocurrency iyo ganacsi online waxyaabaha muhiimka ah in maskaxda ku haysa waxa weeye kala qayb maal gashigaaga lacagtaad haysato hal meel ha wada gelin waxa la yiraahdaa ukuntaada hal meel lama wada dhigto lacagtaad haysato kala qayb meel kala duwan gasho ha wada gelin lacagtaada hal meel kala qaybi si ay u yaraato markaa khatarta hadii hal ganacsi aad ku fashilanto si ganacsi kale uu kugu shaqeeyo tusaale YouTube baa leedahay YouTube baa furtay blogging baa samaysatay hadii YouTube ku socon waayo blog baa ku soconaya marka waa inaad hantida wixii aad kala qaybiso sababta ah YouTube inaad samaysato dhaqaale kaaga baahan yahay kaamiradii wixii dhan kaaga baahan yahay blog inaad samaysato dad aqoon inaad website-kii aad barataa laga raba hadii aadan cid maal aad ku samaynaysan inaad lacag bixisaa laga baahan yahay runtii maalgashi kaaga baahan yahay laakiin kala hadiyo goor lacagtaada meel kala duwan dhigo si hal ganacsi hadii aad ku feel garowdo ka kala uu kugu shaqeeyo ka fogow scamiska waxa ka fogeytaa khataraha dadka marka been abuurka ama waxyaabaha lagu dhici karana ka fogow ama lacagaha lagu dhici karo hadiyo goor waxa aad maal gashanayso waa inuu yahay wax aad la joogto adigu aad gacanta ku hayso waa inuu yahay waa lagaaga sheekeeyay waxana fiican waxana saana waa wax aad baartaan ku sameysay adigu aad ku qanacday waa inuu yahay marka scamiska hadda iska ilaali qof aad tusaalan qurbuhu jooga qof Soomaaliya jooga lacag u diraya wuxuu leeyahay ii sameey ama dhul iibi dhul wuxuu iibinayaa magaalada meel aan umaduba ay gaari karin buu iibinayaa meel wuxuu leeyahay 50,000 baa dhul laga siinaya 50,000 buu soo dirsanaya wuxuu tagay banci laayo qof uu shaqo ka siisanaya $40,000 waa musmaasuqaya marka waxyaalahaas oo dhan waxyaalaha laf dhabarka qofka niyadjibiye kamid ah marka hadiyo goor scam iyo qof dhicitaan lagu dhaco ka fogow qof ku ansan 100% sheegaysa ka faa'iideysa in shay lagu amaanay waxa soo dhan waxay muujinaysaa digniin iyo waxa inaan la gali karin gunaanadka waxaan ku soo urureynaa maalgashi sax waxa uu u baahan yahay aqoon inaad aqoon yeelato yool cad hadaf cad inaad degsato kala qaybin hantidaada inaad kala qaybiso iyo inaad samayso dulqaad qofka sidaas sameeya wuxuu dhisayaa mustaqbal dhaqaale oo adag oo guuleysta runtii marka walaal intaas maanta waxaan ku baranay ganacsiga online ee waxa la yiraahdo maalgashi sax ah sida loo sameeyo marka hadii aad wuxuu ka faa'iiday fadlan nagu soo biir oo YouTube ka subscribe noo saar sidoo kale like noo saar si aad u hesho muuqaalo badan oo online business ka ku saabsan oo runtii wax badan ka anfacaya aad ba mahadsanid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.